waxaa maanta si toos ah xilalka ula kala wareegay mas'uuliyiinta maxkamadda gobolka degmada Ceerigaabo iyo Rafcaanka kadib markii maxkamadda gobolku soo magacowday mas'uuliyiin cusub. xafladan xil wareejinta oo lagu qabtay barxadda weyn ee maxkamadda gobolka waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka iyo maayirka degmada Ceerigaabo, siduwayaal xildhibaano, salaadiin iyo boqorro iyo marti sharaf kale oo badan. waxa uu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyayaashii hore ee maxkamadda Rafcaanka iyo degmada Ceerigaabo oo si rasmi ah halkaasi ugu wareejiyay gudoomiyayaasha cusub. waxa ayna halkaasi hadalada isaga kala dambeeyay gudoomiyayaasha cusub ee xilalka lagu kala wareejiyay. waayo haddii ninka garsoore ah ee kiiska loo dhiibo haddii uu yidhaahdo lacag kaama rabo, guriga iigu kaalay iigu iman maysid, suuqa xaggeen ku ballami mayno, xafiiska ma kugu yimaada iigu iman maysid, oo uu yidhaahdo oo weliba ku xidho dadku lacag soo haysanayaan. anigu taa waan hubaa uganahay arrimaha aanu ka dalbayno inay oofiyaan cadaaladdu haddaanay idinka iman heli maysaan. garsoorku wax walba wuu yeelan karaa, nin isilaaliyuu yeelan karaa, nimaan isilaalin buu yeelan karaa. mahadnaqaya hadalladoodii hadday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo si wanaagsan maanta u magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare. aad iyo aad baa maxaan idhahdaa aynu u fahansanay wax qabadkiisa iminka cusub. gudoomiyaashan cusubna oo la magacaabay iminkana insha Allah iyagana waxaan rajaynaynaa inay wax qabad wanaagsan u horseedaan gobolka. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaajin iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay. raggiisa ka hadlay meesha waxayna yiraahdeen warlaaluush baa la ordaysan lacagtiina haysta, annagana naarta nagu ridayna jidkii siraad baan dhexdiisa taaganay. warabinta ma qaadana ilaahay ma ka baqnaayo. han aamino cadaaladda, han aamino ilaahay qofka uu qalinka u dhiibay. haddii ku gubanayana ku gubto, haddii dariiqa sax marayana ilaahay ha mariyo. Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo wax dhab ah oo la taaban karo oo qiimo weyn leh garsoorkii ka qabtay una magacaabay gudoomiye runtii wax badan intii ee koobneed ee uu joogay ka qabtay hay'adda garsoorka. isaga Maxamed Yuusuf, telefishinka caalamiga ah ee Ficil Channel magaalada Ceerigaabo.